أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو لابكيني تطوات انتي سو المانت لابكينا كسو قادن دونو اثر كانالك مركا صدح سويتش سو قادو سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 سويتش 1 يا 2 wax ka xidhaa labada port 1 ya 1 ya 2 ya 2 switch 1 ya 3 wax ka xidhaa 3 ya 3 ya 4 ya 4 switch 3 wax ka xidhaa ya 2 na 3 ya 1 ya 2 ya 4 way aan isku saxina. Beginning with the base configuration, set all ports as access ports in VLAN 1. Ports kodan waa inay ku wada jiraan VLAN 1 sidana aan isku saxina. aan bilowno iska baagi tracerkeena soo qaad saddexdii switch 1 kan switch 1 iyo 2 iyo 3 soo qaado ku kala xidh marka labadan waxaan iskaga xidhaynaa fast internet 0/1 kana waxaan ku xidhaynaa fast internet 0/1 waxaan kaloo ku xidhaynaa fast internet 0/2 iyo fast internet 0/2 kana waxaan ku xidhaynaa fast internet 0/3 fast internet 0/3 fast internet 0/4 fast internet 0/4 can fast internet 0/3 fast internet 0/1 fast internet 0/2 fast internet 0/4 anegno wakas 1 ya 1 2 ya 2 3 ya 3 4 ya 4 1 ya 3 2 ya 4 صح saasaan u qaabeynay wakas marka waa 1 ya 1 2 ya 2 3 ya 3 4 ya 4 1 ya 3 2 ya 4 hadaa waa ina ka dhawnay wuxuu dhan waa isku wada VLAN 1 waxaan ka bedel configure ether canal on interfaces between switch 2 and switch 3 using iyagoo aad isticmaalsi back B way back B waa kii ay khaaska u lahayd Cisco marka isagoo aad back B isticmaalsi marka switch 2 iyo switch 3 waa kan switch 2 iyo switch 3 back B isticmaal way marka xidhanna angelina selayda enable configure terminal way xidhna interface range fast internet 0/ keebuha 0/3 ilaa 4 3 ilaa 4 xidhna switch port xidhna canal group 1 marka modekiisana desirable baan ka dhigaynaa waka kan noo soo shidayna waa khaladnay noo aan koraysiin oo khaladnay inaan kan ku qornayd waayo 3 iyo 4 waa kan 3 iyo 4 waa kan interfaces kan galnay ayaa khaldan marka enable deh configure terminal deh interface range fast internet 0/3 ilaa 4 waxaad tiraahdaa canal group 1 modekiisa desirable ka dhig waka haddana kan interfaceski gal 3 iyo 4 maaha waa 1 ilaa 2 halkaana ka taxadir
kernel group 1 modekiisa auto ama desirable labadaba desirable oo xidhiidh karta ka doonaysid aragtaa labadoodu oo ka baqtiyeen dib u soo shinmayaan dib ayay u soo shinmayaan وقال لبدو دبتي مركلية بندل بان سميني حتى نيجنو show ether channel حتى نيجنو group state link واي باي بي ولا استعمالي summary ماركتا port 0/1 و s s maxay u taagantay s taas st halkan ka part waa layer 2 u daasina waa in use wala isticmaaliyo marka portiska back b protocol kan isticmaalnay waa internet 0/3 la 4 kan kalena aanayno show ether canal summary marakta s waa ka waa layer 2 u waa in use u daasi waa in use وطبق b fast internet 0/1 b daasina waxay noo sheegaysaa p import canal inuu yahay way labadooda noo sheegayaan number of canal groups in use waa 1 number of aggregation waa 1 wata way su'aashina labaad su'aashina saddexaad ee configure ether canal or interface s1 es2 s1 es2 lag b na isticmaal lag b isticmaal waxa loo soo gaabiyay link aggregation control protocol kan kalena port aggregation protocol way aan kalno enable configure terminal way harna interface range as internet 0/1 ilaa 2 keeban ku jirna switch 1 ka ku jirna 1 يا تو صح مني عنا كنا الجروب تو بس كده مود كيسة مركا لاج بي بالجوري استعمال مود كيسة هذا اكتف هاتنا كنقل configure terminal interface range fast internet 0/1 ilaa 2 kernel group waa 2 modekiisana passive marka passive baan gadhigana ka labadoo ka saarkiisid waa kaas aggregationkii waa ka dhacay port create ka wada dhigmatay تاني show ether canal أنا لانه show ether canal summary وكاس portiera 1 يا إلا 2 lag b بلا استعماله switch layer 2 use نه صح كان كنا تاني أنا لانه show ether canal summary وتا fast internet 0/1 إلا 2 lag b بلا استعماله use سؤالنا نوغو حيتا waa configure hard coded ether canal on interface s1 es2 marka s1 switch 1 iyo switch 3 hard code استعمال hard code waa on weyn baa la dhahdaa hard code okay aan isticmaal switch 1 muxuu yahay fast internet 0/ show IV interface brief include app anagna inta shidan anagna marka waxaa shidan 1 2 3 4 marka labadani waa 3 iyo 4 markaan gelina configure terminal waxaana interface range fast internet 0/3 my illa 3 illa 4 hadana kernel group
3 word mode on baa labadaba la isticmaalaya on ayaa labadaba la isticmaalaya configure terminal interface range fast range percent 0/3 ilaa 4 waxaa odhanaa kernel group 3 modekiisana on ka dhig okay labadooda waa taas isoo shidmayaan arkaysa waa kaasna show shidmay haddaan halkan ka eegno show ether kernel summary waa kaas waa port s waa layer 2 waa in use oo fast internet 0/3 oo kaas toos buu shaqeynaya laakiin maxaa meesha casiyay waxa casiyay hadad wad garanaysa spanning tree kani hal linki oo kaliya hal xarig buu taagay kana hal xarig buu taagay kana hal xarig oo kale uu taagay marka si aanu loogu dhicin mid baa la xidhay marka kani hal xarig buu isku taagay laakiin midaasi halkii xarig ayaa la xidhay marka toos baa laakiin loo isticmaalaya saas weeyaan marka waxay su'aashina shanaad examine the configuration using show command is to verify ether kernel works correctly taasna aan ka wada jawaabno okay waxooda dhan eegnay haddaan tan eegno hadana show ether kernel summary waa taas lab uu ka isticmaalaya tan kan eegno lab oo fast internet 0/2 ilaa 1 iyo kan oo hardcode 0/3 ilaa 4 oo waa in use wala isticmaalaya kan kale haddaan eegno kaas waa labadooda waa in use su waa inaad meesha ku aragtaa haddii kale haddaad sd ku aragtid meesha down oo kale ma shaqeynayo marka waa sax saas ay inoogu shaqeyso wixii oo dhan haddaan eegno su-aasha ku xigta waxay misconfigure an interface in back b or lag b bundle what happens iminka kan oo kale waxaan kusoo xidhnay kan waa kii aan kusoo xidhnay lag b oo halkaana active baan ka dhignay halkaana passive baan ka dhignay kanna waxaan waa back b iyo desirable baan ka dhignay marka kaas ayaan labadooda waxaan ka dhignaa kan kalena passive baan ka dhignaa configure terminal waxaa odhan interface range fast internet 0/1 ilaa 2 1 ilaa 2 sama 1 ilaa 2 weeyaan marka waxaan odhanaa kernel group 1 modekiisa kernel group 2 waa iska dhahdaa doontid waa la odhan kartaa passive waxa weeyaan egg ma shaqeynaya aragta haddaan eegno show ether kernel summary aragta portigii lag b-gaasi shaqeyn maayo waxa weeyaan interface-kaasi wuu baktiysan yahay ayada maxay u taagantay ayada halkan waa stand alone keligii u taagan weeyaan oo ma isku soo xidhmin weeyaan waa st waxa weeyaan layer 2 st maada waa tan st weynid waa layer 2 d-duna waa down markaa shaqeyn maayo waa taas marka labadaba dhinacanna passive baan ka dhignay waa in active iyo passive ka kala dhigtaa haddii aan dhinacan macal desirable ka dhigno sidan oo kale haddaan idhaahdo configure terminal oo kale aan idhaahno interfacekii soo gal aan idhaahno kernel group 2 modekiisaba desirable ba ka dhig haddaan idhaahno isku dhex walaano kanna wuxuu ka odhanayaa kernel with different type of protocol is already part of ma shaqeynaya mar kastaba marnaba waxa ilaa aad active ka dhigtid mooyaane su-aashiina ugu dambeysa waxay figis issue what happens now figis issue haddaan figis karayno active baan ka dhignaa عادي وطا نقطة عادي وطا نقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.